بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، وعين كنا جني مسائل كي كصاب سنة من فقه الصوم، وعين إن شاء الله تعالى عاوقلي دونا أهل الأعذار يصون كودا يسيد اللي يلايو. أهل الأعذار waxaan uga jeednaa waxa weeyaan dadka cudurdaarada leh iyo soonkoodu siduu noqonayo. waxaa jira cudurdaaro qofka u banaynaya maalinta Ramadaan inuu afuro. cudurdaarada waxaa kow ka ah almarad. qofka hadduu xanuunsanayo xanuun iyo jirro uu qabo waxaa u bannaan inuu afuro ayaa u bannaan. xanuunkuna waa laba nooc weeyaan. nooca koowaadi waxa weeyaan waa xanuun qofka la rajaynayo inuu ka caafimaado la rajaynayo. malaariya haysa, qandho iyo xanuun baa hadda ku taagan, laakiin yurjaa bur'u, waxaa la rajaynayaa inuu caafimaado ayaa la rajaynaya. qofka noocaasa waxaa u bannaan intaa uu xanuunsanayo inuu afuro ayaa u bannaan. laakiin waxaa waajib ku noqonaysa markuu caafimaado inuu soo qadeeyo uu soo qalleeyo intii ka tagtay iyo intii maalimood ee uu afuray. siduu allahba tabaaraka wa tacaala uu leeyahay, faman kaana minkum mariidan aw calaa safarin faciddatun min ayaamin ukhar. qofkii idinka mida ee xanuunsanaya ama safar ku taagan waxaa ku waajibay maalimaha uu afuray intii u dhiganta oo maalimo damba. culimmaduna arrinta noocaasa way ku ijmaacsan yihiin, oo culimmadu waxay ku ijmaaceen qofkii xanuunku dhibaayo soonkana ka daciifay inuu afuro. ibnu xasam aldaahiri ayaa kitaabkiisa maraatibulijmaac wuxuu ku soo naqliyey warkan odhanaya waatafaquu calaa anna man aadaahu almarad wa dacafa can isawm falahu an yuftir. waxaa la mida markaa qofkan xanuunsanaya ee hadda xanuunkiisa la hubo, qof kale oo aan xanuunsanahaynin, laakiin dhakhaatiirtu ay yidhaahdeen qofka hadduu soomo xanuun baa ku dhalanaya ay yidhaahdeen, ama xanuunkan hadda aan ka daaweynayno ee ka nasilmay ee waxoogaa caafimaada uu dareemayo hadduu soomo xanuunkiibaa ku soo laabanaya. marka waxaa laga maarmaana in muddo ah inaanu soomin si xanuunkaasi uu uga caafimaado. qofkaasi wuxuu la mid noqonayaa qofkii hadda xanuunku ku taagnaa ayuu la mid noqonayaa. waa qof xanuun laga daaweynayo, xanuunkiina uu sii socdo, laakiin dhakhaatiirtu ay leeyihiin hadduu soomo uu daawada maalintii qaadan waayo waxaa ku soo laabanaya, xanuunkiibaa ku soo noqonaya. amaba qof baa jira maalan isagu hadda wuu caafimaad qabaa, laakiin waxaa la leeyahay haddii uu soomo xanuun buu qaadayaa. gaajada uma adkaysan kara maalan, oo gaajo hadduu gaajoodo xanuun baa ku dilaacaya. qofkaasoo kale isagana wuu afuri karaa, hadhowna hadduu caafimaado wuu soo qallaynaya. wuxuu leeyahay ibnu qudaama raxmatullaahi calayh, waasaxiixu aladii yukhsha almaradu biasiyaam kaalmariid aladii yukhaafu ziyaadatuhu fii ibaaxati alfitri. wuxuu leeyahy lianna almariid inamaa ubiixa lahu alfitr khawfa mima yatajadadu bisiyaamihi min ziyaadati almaradi wa tataawulih, faalkhawfu min tajadudi almaradi fii macnah. wuxuu leeyahay sheekhaasi macnaha xanuunka waxaa loogu banneeyey qofka inuu afuro. waxaa laga cabsanayaa hadduu soomo inuu xanuunku ku ziyaado ayaa laga cabsanaya. qofkan marka waxaa la mid noqonaya la leeyahay xanuun baa ku dhalanaya ayaa isagana la mid noqonaya. waxay miithaal u soo qaataa maalan nin baa xanuunsanaya, xanuunka hayana waxa weeyaan waa shahwatuljimaac. dhakhaatiirta waxay isku raaceen ninka noocaasa haddaan si deg dega islaan loogu geynin in xiniyo ay dildallaaci doonaan ayaa la ysku raacay. qofka noocaasa waxaa u bannaan inuu afuro, xanuunkaasna laga daaweeyo, islaanna loo raadiyo. waxaa la mida maalan waxaa dhacaysa mararka qaarkood gabadh yar oo laga yaabo 10 sano inay jirto ama 9 sano inay jirto ama 11 sano inay jirto
ayay caadadii ku dhacaysaa oo ay qaangaadhaysaa. lafaheeda markii la fiiriyo, awooddeeda markii la fiiriyana awood qaadi karta maaha inay soonto. marka maxay tahay? waa daciif weeyaan, haddana waa qaangaadh weeyaan. qofkaa yar ee qaangaadha ee noocaasa ee soonkana aan u adkaysan karin, hadduu adkaysan karo wuu soomaya. laakiin hadduunu adkaysan karin, maxaa u bannaan? gabadhaa yar inay afurto ayaa u bannaan. waxaa loo qorayaa intii maalimood ay afurtay, markay xoogaysato ayay soo qallaynaysaa. nooca labaad ee xanuunka waa xanuun qofka ku dhacay oo daa'ima, inuu zuulana aan la rajaynahaynin. maalan waa qof gaboobay weeyaan. gabowgu waa cudur weeye. cudurka gabowgana lama filaayo inuu dib u soo kabto, qofkii la fili maayo. ama qofka waxa ku dhacay xanuunada qofka uu la noolaado ayaa ku dhacay, soonkiina ma awoodo. ama qof dhakhtar ah oo tabiib ah oo muslima oo lagu kalsoon yahay ayaa ka warramay qofkan xanuunkan inaanu ka bogsanahaynin. qofka noocaasoo kale isaga soonku waajib ku noqon maayo, qallana laguma laha. laakiin waxaa lagu leeyahay inay idcaam sameeyaan oo beddelkii soonka ay geliyaan, inay maalin kasta oo ay soomi lahaayeen hal miskiin ay quudiyaan. waxaanu ku fasiray cabdullaahi ibnu cabbaas radia allaahu canhu aayadda qur-aanka wa cala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin, inay ka hadlayso qofkii gaboobay ee waayeelka ahaa, ama dumar ha noqdo ama rag ha noqdo, inay ka hadlayso ayuu ku fasiray, sida imaamulbukhaari raxmatullaahi calayhi uu ku soo saaray fii saxiixii uu ku soo saaray. qofka markaa booskii soonka muxuu gelinayaa? inuu maalintii u afuray miskiin uu afuriyo. miskiinka markaa uu afurinaayo siduu u afurinaya? dhowr xaalaba way u bannaanta, ilaa 3 xaalo ayaa u bannaan. xaaladda koowaad waxaa u bannaan in uu isku keeno, matala hadduu 30 maalimoodba aanu soomi karin, wuxuu isku keenayaa 30 qof ayuu isku keenayaa. 30kaa qofuu hal maalin afuru samaynayaa, cashaysiinayaa, kadibna soonkiisii saasuu kaga dhacay. waxaa sidaas sameeyey anas ibnu maalik radia allaahu canhu. saxaabigaas markii uu gaboobay u weynaaday, wuxuu sameeyey xeydho weyn oo cunta, 30 qofna wuu u yeedhay, kadibna wuu dhargiyey. 30kii maalimood marka halkaa maalin ee uu dhargiyey 30 qof ayaa kaga filaanay. waxaa kaloo u bannaan halkii maalinba inuu qof afuriyo ayaa u bannaan. macnaheed maxay tahay? 30ka beri ayuu qof gurigiisa ku qoraya, kadibna wuxuu samaynayaa qofkaasaa soo xaadiraya, habeen kaste soo xaadiraya, meeshuu ka cuntaynaya oo ka dhargaya, kaasna wuu kaga filaan kartaa. iyada lafteedana waxaa sameeyey anas ibnu maalik ayaa sameeyey markuu weynaaday. 1 sano iyo 2 sano ayuu saas samayn jiray. wuxuu samayn jiray miskiin buu u yeedhi jiray, canjeero iyo hilib ayuu isugu dari jiray, uu dhargin jiray. saasuu markaa maalintii uu ku gudan jiray. waxaa kaloo iyadana u bannaan inuu qiimeeyo qof wixii ku filan hal maalin uu qiimeeyo. markuu markaa qiimeeyo, lacagta uu isku geeyo intay noqotay oo lacaga, haddii maslaxada ay ugu jirto qofka miskiinkaa, inuu ku wareejiyo, yidhaahdo isku ilaali. maxaa la yidhahdaa? bisha ramadaan isku ilaali. laakiin shardi waxa u ah in qofkaasi uu yahay qof ay danta ugu jirto, xagga lacagta ugu jirto, oo raashinka iyo lacagta tii u maslaxo badan ayaa la qiimaynayaa. haddii markaa lacagta ay u maslaxo badan tahay, lacagtaa loo qiimaynayaa, waa la siinayaa. haddii laakiin maslaxo noocaas aanay ku jirin, waxaa la bixinaya waxa weeyaan waa quudkii iyo raashinkii. idcaam ayaa lafdiga la adeegsadaya. qadarka qofkan ku waajibaya ee la dhiibaya maxay tahay? qadarka waxa weeyaan waa 1 mud. 2 mudna culimmada qaarkood way yidhaahdeen, oo nisfu saacina culimmada qaar baa ku tegey, mudna qaar baa ku tegey. saac wuxuu u dhigmaa 2 kiilo ilaa 75 garaam ayuu u dhigmaa. haddii markaa 2 kiilo iyo ilaa 75 garaam uu u dhigmo, halkii saac wuxuu u qaybsamaa 4 mud ayuu u qaybsamaa. 2 kiilo iyo 75 garaam markii 4 meelood u qaybi. 4 meelood haddaa u qaybisidba waxa kuu soo baxaya mudkiibaa kuu soo baxaya. haddayna hadda 4 meelood u qaybinana nus kiilo iyo wax yar ayay noqonaysaa. qofkii marka maxaa laga rabaa?
inuu intaa sameeyo ayaa laga rabaa. intaasuu qof siinayaa. hadduu gasiinkeedii yara ugu darana waa khayr, hadduu kariyana way bannaantahe, waynu soo sheegnay. hadduu intaas ku wada jamciyo kadibna masaakiinta hal mar u yeedho, hal mar u dhargiyana, iyadana waynu soo sheegnay. qofkii markaa xanuunsanayey labada xaalo ayuu marayaa. waa qof xanuunkiisii la rajaynayo inuu ka caafimaado, isaga wuu afurayaa, qalana waa lagu leeyay. qof xanuunsanaya oo xanuunkiisii inuu ka caafimaado aan la rajaynahayn waa qofka labaad weeyaan. qofkaasna isna siduu yeelaya waynu sheegnay, idcaamkaasuu samaynayaa. qaabo ka u bannaan oo u samayn karana insha allahu tacaala iyadana waynu soo sheegnay. saasuu markaa qofkaasi uu yeelayaa. ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu xaqayna waafajiyo. subxaanaka allaahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha illaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk.